sixirka waxa la ilaahay hadaynu soo noqono taariifkiisa ama tilmaantiisa qodobo dhowr aynu ka sheegayo tobaneeyo meelahaas insha Allah si macluumaad guud dadku ay uga qaataan ka thaqafatin caama taariifkiisa waxa lagu tilmaamaa inuu yahay wixii qarsoon sahara bimacna khafiya wastatara ayaa lagu tilmaamaa oo suxuurta had iyo jeer dee waa raashin qarsoon waqti qarsoon baa suxuurta la cunaa sahar habeenka gelinkiisa dambe qarsoon weey waxa kale oo lagu tilmaamaa sixirku inuu yahay xaqiiqado shayga la weydaariyo saxaru acyuna الناس wastarhabuhum wajaa'u bisixrin cadiim kala wareejin dadka la kala wareejiyo saxarahu bimacnaa qofku sidii uu socon lahaa caadiga ahayd si aan hayn buu ka jahayn karaa inna min albayaani la sixra nabigu wuxuu yidhi aftahanimada iyo codkarnimada dadka qayb baa ka mida sixirka qayb ka mida weeye waxaa laga yaabaa waxaad iska aaminsanayd oo aad iskaga noolayd oo aad ku socotay hadduu ku helo qof aan agnaan ahayn ee aftahan oo codkara oo kugu weydiiyo oo waxba ka jawaabi kara weydaad waxba oran kara weydo inuu ku raa ama wax keen ama waa yahay dheh dabeetana aad tiraahdo waa yahay yana sixir ahayn waa sixir weey taasina markaa waxa weey kala wareejintaana waa loo isticmaalaa xagga sharcigana dee maadaama noocyo badan yahay taariif kaliya laguma koobi kara bayda oo xadda ama taariifka adiga jeer qolada mantiqa ka hadla waxay dhaha ma yaqtadi tasawuruhu tasawur almucarraf aw imtiyaazahu can ghayri taariifku waa inuu noqdaa maanic jaamic mudari wixii la doonayana waa inay soo wada galaan wixii la diidayna waa inay ka wada baxaan xuduudiina aan la gelinin oo taariif iyo aanu isdhex gelin shayga xaddiisa aan xukunkiisa almuhim maadaama qaybo badan leeyahay taariif laguma soo koobi kara bay leeyihiin laakiin waxa weeyaanuun waxyaabo la isku gungunto wax lagu akhriyo oo kadibna qofka dabeecadiisa iyo jawigiisa iyo falagana lala eegto oo qofka wax lagu yeeleeyo sidii nabiga loo sameeyay calayhi salaatu wasalaam ama waxyaabo la akhriyo weeyo iyo wax la shidshido oo shayaadiin la soo dejiyo qofka loo adeegsado arrimahaas mu noqda taariifkiisa intaan ku dhaaf lahu adraa qaybtiisa labaad waxa weeye dhibaatooyin buu leeyahay dhibaatooyinkaas qaar diiniyana way leeyihiin qaar caafimaadna way leeyihiin qaar bulshana way leeyihiin dhibaatooyinka diinigu sixirku leeyahay waxa ka mid ah dee qofkii waa caqiide la'aan madiin baa hadhay kol haddii lagu gaaloobay sixirkii qofkii waa ku gaaloobaya xukumkiisa alxukm intaasoo aayadood baynu ka arkaynaa intaasoo kelmadood oo aayadda ka mid ah marka jumhuurulculamaa culimada intooda badani waxay isla waafaqsan yihiin qofku hadduu sixirka caadaysto ama ku shaqaysto ama u taguu ku noqnoqdo kii sixirka samaynayay rag iyo dumar mid kastaada inuu diinta islaamka kaga baxayo wanacuudu billah hadduu diinta islaamka ka baxana naagtii way gaalowday ninkiina wuu gaaloobay dalaaqi furiin wixii ay isku qabeen caqadkii nikaaxina uu buray tusaale naag baa istiri ninkaaga kaam yaraystay isjeclaysiiyo hooga soo sug waxay yidhahdaan imika markay midimi yaraysta waxay yidhahdaan aheedhe miyuu dee maad farsamaysid bay idhaha maad farsamaysid macnaheedu waxa wey maad sixirtid khalaas iyadiina way ka furantay xaaraan buu ku waxaynayaa kanay islahayd soo qabso oo miyarada ka soo qabso waa tusaale miyaraduna dee way samayn kartaa taweyne way samayn kartaa waa meelaha mushkiladuhu ay ka yimaadaan bay ka mid waa ka qofkiiba way furantayba xaaraan buu kula kulmaya waa tusaale idan markaa waa dararka ugu weyne caqiide ahaan sixirku waxa weeye tacdiimu saxarati wa ahli shacwada halkii ilaahay laga weyneyn lahaabaa waxaa la weyneynayaa sixir leh iyo khuraafaad leh waxaa adraartiisa ka mida tarku almalaadi alxaq alladii yajibu allujuu'u ilayh markay dhibaata dhacdo ilaahii u weynaa la magan geli lahaa ayaa la weydaartay waa cibaadatu shayaaiin ilaa shaydaanka la caabudo sixir ma hirgalo ka loo fulinayo iyo kan kale labaduba wakhtiyadu u hirgalaya waa inuu shaydaanka caabudaa horta shaydaankuna kama yeelayo inuu wax la riixo jeeroo diinta uu ka soo baxo marka wasaa'ilka iyo wadooyinka la maraya waa xaaraan iyo gaalnimo ayaa la soo maraa kaadi lagu maydho kitaabka qur-aankoo lagu joogsado dumarka dhiigooda caadada wax lagu qoro aayada lagu qoro waa gaalnimo iyo qofkii oo isa soo qaawiya ilaa heerkaa markuu soo gaadho
ayaa uu wax la qabtaa uu dee jeebka ku rito kamathali shayطaan id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara qaala inii bariiءu mink ilaahay arkaa markuu la gaadho adraartiisa ama dhibaatooyinkiisa caafimaad waxaa ka mida dee kolley qofka xanuun waa soo gaadhaya jidhka ah sidii nebigaba ku dhacday calayhi salaatu wasalaam dumarka uurka lahoo kale mararka qaarkood ilmuhu ka soo dhacaya humuumta iyo qumuumta iyo qalaqa qofka nafsiyaadkiisii waxaa isbedelaya culays baa la saaraya sida aayaddu sheegtay laba qof oo isjeclaabaa lagu kala eraya laba qof oo isnabcaana waa la isku dhufanaya adraartaasoo dhan waa kuwa xagga caafimaad marar badanna waynu aragnaa qofkoo dhakhtar loo geeyo oo shaybaadh badan lagu sameeyo qalab badan la geliyo la yidhaha waxba kuma hayaan caadi baat marka waa marad ruuxiya astaamaha ay ka mid tahay mar haddii waxba la yidhaha dhakhtarku uu kuhaa waxba waan ka waayo xoliba waa caadi in cudur xagga ruuxda uu haysto oo u baahan in qur-aan iyo lagu cilaajiyo diin lagu daweeyo adraartiisa ijtimaacigaa waxaa ka mid ah alcunfu اlusari wasdiyaad shukuuk wahadmu اlbuyuut guryaha waxyaabaha haddana casrigan aynu joogno ugu badana lagu dumiye wey dadka isjecel iyo dadka isku wanaagsan iyo dadka guryaha xaasileyda waxyaabaha lagu dumiye wey adraarta uu leeyahay waxaa ka mid a in bulshada dhexdeeda cadaawad laga abuuro shisheeyahana loogu nugleeyo weerarka ummadaha lagu sameeyo waxaa ka mid a ugu adagka cuquusha caqliga kalaga duulo dii gaaladu ay caruurteennii caqliga kaga duulaanoo qaswulfikrigii maskaxdii laga qabsado oo waxay iyagu doonayaan inuu laga dhaadhiciyo marka wax la barayo qayb kalena balwadii lagu daldalo oo jaadkii iyo sigaarkii iyo badeecadii iyo buurigii ay liqliqaan oonay caadiba ahayn maray marqaansan yihiin iyo maray xaraaraysan yihiin iyo maray qaadiraysan yihiin inay noqdaan qayb kalena sixirlayaashii laga qaban waayo ay wada qataaraan bal adigu dadkaasi siday dalka u wadayaan ay ugu noolaanayaan dowladda wadi maayaan cibaadana wadi maayaan aqoonna wadi maayaan iyaguna wada joogi maayaan waa inay helaan markaa saddexda cudur ee caqliga ku duulayada ciddii kala dagaalami lahayd allah u sakhira dadka waxaa ka mid ah ithaarat lfawaaxish waxyaabaha sinada iyo xaaraanta iyo ceebaha iyo dulmiga lagu faafiyo ayuu ka mid yahay sixirku mid baa sine ku diidaysa uu sirxayaa uu ka sinaysanaya mid baa xoolihiisii u diidaya uu sirxayaa uu ka qaadanaya sidaas waa wax badan oo dhibaato ah waxyaabaha ugu dhib badan ee bulshooyinka lagu weeraro ayaa uu ka mid yahay idan marka xalku waa maxay xalku waxa weeye ugu horeyn alwiqaaya ka hortag sida looga hortegaya waxa weeye dadka ficilkan ku kacaya inaan la eeganine dee dadku way baaba'ayaanoo ma sii wada joogi karaan horumarna ma samaynayaane wacyigelinna dadka lagu sameeyey ogaadaan waxaan wuxuu yahay oo aanay khayr u qaadanin iyo karaamo iyo welinimo oo dadku ay ku qancaan waxaan inuu xaaraan yahay isla markaana ficilkiina uu la socdaayo maamulka meeshaa ka jira ee muslimka ahi marka magacaa la sheego la soo qabto oo dabeetana xeer ciqaabeedkii uu mutaystay la mariyo halkaa waddada qoorta loo caseeyo sidii cumar binu khadaab way sugantay qisadaas cumar binu khadaab wakhtigiisii baa loo sheegay sixirlayaaloo amar buu bixiyo wuxuu ihi uqtuluu kulla saaxirin wa saaxira sixirle kasta oo nina iyo mid kastoo naagaba dila saddex baanu dilay buu leeyahy ninka ka warramayaa maalintaa taasina waa mid uu ku joogsan karoo taxun bay ku alla taqaanaa dadka imaan laawayaasha had iyo jeer waxaa ka mid a isaguna wax la yidhaahdo cilaaj qofkii waxaan oo kale lagu arko inuu qofku cilaaj saxa la mariyo waa musiibo weyn haddii sixir lagu sameeyo sixirle kale loo geeyo miyaanay saymo oodan ahayn sixirla ayaa wax u qabtay sixirle kalena waa loo geeyey ama isagii un baaba lagu celiyo la yidhi kafur wuu kuusii ribdhow yoomkiisa usii soconaya laaluushkiisa marka waa in cilaaj saxa cilaajka saxayna waxa weeye qur'aanka kariimka ah oo markaas qofka lagula dadaalo cid taqwo lahoo alla kacabsiloo ilaahay si wanaagsan ugu baridana loo geeyo oo aqoontii iyo ammaanadii labadaba leh habka loo daweynayaana uu noqdo hab sharciga waafaqsan oon khilaafsanayn uu noqdo oo khulwadii iyo xadgudubkii iyo cawradii iyo wixii la yska ilaaliyo isla markaana qofka laftiisa caalij nafsaka binafsik la baraa qofku inuu naftiisa daweeyo oo naftiisa uu ku daweeyo oo la baraa waxaan isagaa sida adkaarta la akhristay iyo tahaaradii iyo sida loo cibaadaystay kullamaa sida qofka ugu wanaagsan loo cilaajiyo waxay mar kasta oo faralka uu aad u badiyo inuu guto sunnayaashana aad u badiyo
dahaarada iyo aadaabtana aada u laasimo macsiyada iyo dembigana iska ilaaliyo salaatuleylka uu badiyo iyo soomka dikriga ilaahay adkaaru sabaaxi walmasaa cilaajkiisu wuu soo degdegaya markaa qofkii inuu isaguna isdaweeyo sidaa fiicanna loo daweeyo dee hadyigii nebigaana inoogu filan calayhi salaatu wasalaam oo isaga laftiisu dee wuxuu akhriyay qulacuudiyaha iyo qulwallaha iyo suuratu faatixa iyo waxyaabaha lagu daweynaya waxaa ka mid a haddii qofka ilaahay uu ogeysiiyo ama cid kale ay ugu riyooto in isagii lasoo saaro wixii xunka ahaa la kala furo oo la kala fakiyo waxyaabahaasoo dhan baa kolley cilaajka noqonaya laakiin sax maaha cid khuraafaadla in loo geeyo oo sixirlayaashii ugu bedelaysa uun inay daaqadda ka soo galaan oo rawxaan iyo jiman iyo dariiqo xaaraan in la yidhaha waxbaa lagu daweynaya wuu kusii adka way sii degayaan goodhowna markay ku raagaan la furfuri kari maayo idan waxaynu leenahay yaan la cabsanin oo la firdhan laba aragtiyood baa labaduba khalada qolo tidhaahda sixir wax la yidhaha maba jiraba caqlaaniyiinta casrigana nool lahay sixirku wax jiraba maahaba oo intanoo aayadood iyaba dafiraya oo diidaya iyo qolo kale oo wixii dhaqaaqaba odhanaya waa sirxanaha labadaa wabtaqi bayna daalika sabiilan hadduu duri ku dhaco wuxuu leeyahy wallaahi maanta waa ribdhana waa la isoo eegay kanaa sidana wax xaqiiqaa inaad hesho caalim aqoon u lehi waxaan wax kaaga sheego xaaladaadu waa iska caadi wax dhibina ma jiro kuna bushaarayso qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lana nagu dhici maayo waxaan ilaahay noo qorin mid muuqda khalqiga iyo mid qarsoon midna waxba kuma yeeli kara haddii aanu ilaahay kuu qadarin ilaahayna waa inaad hoos gasho iyo kalaamkiisa kariimkaa iyo ducada nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam waxaanaynu ku bushaaraysanaynaa walaa yuflixu saaxiru xayu ataa dadka waxaa caadaysta iyo kuwa u sameeya guuldarun bay u dambeeya guuldaro ayaa ku dhacda iyo iyada oo la arki doono shayaadiintu isticmaalaya inay dileen isaga iyo caruurtiisa iyo ehelkiisiiba ay kaga kawsiiyeen ay kharaabiyeen wallahu subxaanaه wa tacala aclam